أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب مفتح الأبواب ومسبب الأسباب، وصلى الله على سيدنا محمد سيد أهل الأحباب وعلى آله الأطياب وصحابته ذوي القرب والإنابة والإياب. أما بعد، إخواني الكرام أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أن إذن لا يهي سند وناكسن الحمد لله تعالى. إلهي فرصة نوسي سند كلا إن نولانه أو أنسو قارنه سند كي كن إأفر بقول إأفرتن إيكو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفرصة كلا وشانس كلا وإلهي سبحانه وتعالى ونسيي إن أنكو عابدنو، إن أن دينتي سأخدمينو، إن أننا وحا نسكترنو، إن آخرنا وشقيسنو يدون كينبا. إذن وحلو بهاي هورتا قلد داس حق إلهي سبحانه وتعالى كأهاتي نعمة داس إلهي حقي سكحاصل نقطي إن لا اعترافه إن لا حصوصته maxaa dhacay xasuustaas oo galada Ilaahay iyo nicmada Ilaahay maxaa dhacay waxa dhici kartay meeqa qof oo nala noolaayeen sanadihiina soo dhaafay oo maanta aan nala joogin. idan waa nicmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo ogolaado inaan soo gaarnaba sanadkan oo bari zaid ah, cimri zaid ah, sanad zaid ah, bil zaid ah, bil aanan lugta noogu jirin wali, yoon aan lugta noogu jirin wali oo aanan hubin inaan gaarayno in kale in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo ogolaado inaan soo gaarno, inuu noo ogolaado inaan wajigeena dhulka dhigno u sujuudno, inuu noo ogolaado inaan waxdaaniyadiisa ogolaano la soo kacno anagoo tawxiidsanayno, aan la jiifano anagoo tawxiidsanayno. taas kaliya nicmad oo malaayiin dad adduunka maanta ku nool aysan haysanin ay tahay. idan taas horta inaan nicmad u aragna ayada nafteeda loo baahan yahay. taas ka sokow waxyaabo fara badan ninkii videoga sanadkii hore u noqdo bilowga bisha Muharram aan ka soo duubnay waxuu heli karaa munaasabadooyin fara badan bishan Muharram ku jira inaan ka soo hadalnay. marka ma rabna inaan wixii ku celcelino sanad walba, waxaan rabnaa laakiin waxyaabo cusub, fawaa'id cusub sanad walba insha Allah ta'ala wax yar inaan ka taabano. fawaa'idaba dhamaanaynin ba ma sha Allah diintan islaamka ayadoo dhanba bad oo meel walba laga galo waxa waay khayraadkeeda iyo nafaxaadkeeda iyo barakaadkeeda aanan dhamaanaynin. idan sanadkan haddana insha Allah ta'ala wax yar inaan isla fiirfiirinaan rabnaa. sanadkan caamu dhikr wal adkaar inaan ka dhiganaan rabnaa insha Allah ta'ala. dhikriga adkaarta lisaankeena inuu u bataan rabnaa insha Allah. inaan baranaan rabnaa adkaar fara badan oo laga soo gaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii iyo salafkii saalixiinta ahaa, dadkii wanaagsanaa ahlul khayrka ahaa, culimmadii islaamka, waxyaabihii ma'thuuraadka laga soo gaaray inaan baranno, inaan isxasuusino oo aan ku camal falno oo aan u gudbino generationyada soo socdaan insha Allah ta'ala. فنقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علماء الإسلامك waxay soo guuriyeen kutubo fara badan ay ku soo guuriyeen bisha markay horta soo gasho waxyaabaha la dhahayo ama waxyaabaha lagu dhawaqayo ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xusaayo. مثلا ba kitaabka Riyadus Salihin haddaan soo qaadano ما رياض الصالحين ما أنت قلنا رياض الصالحين مسألة كلام كهذلينا وحواي كتاب الأذكار وإمام النووي لأسجن أوليه كتاب رياض الصالحين إمام النووي لأسكله وحو لقي مثلا إمام النووي كتاب أذكار الصيام باب لنا وباب يستي وبحيي باب ما يقوله إذا رأى الهلال وما يقول إذا رأى القمر. وحد كي ليس كتابك كتاب الأذكار لو يقانو قري قف مسلم أقريسي إنه كم مخناضنا ما أهن كتاب كان حقيقة كتاب قيم واي هذا كورنا محاضرة كلا وحا لينا وحاوي درسك حديثك أيات فيرين كرتان درسك الله بعد أما سدح هذا ما أفراد سدح ذو مد واي ما حسوست هذا بالضبط أيام محان شاقي إن كتاب كان أذكار تمان تدتك اللي بدل الكتاب كان لو يقانو حصن المسلم أو ير أو جيبك قلايو أو معناها انتي سبضا laga soo koobiye intiisa badan aan kulligiisaba laga soo koobiyay kitaabkan al-adhkar oo Imam an-Nawawi uu leeyahay
oo dadka lagu lugooyay maxaa dhacay adkaar fara badan oo inta ku qoran oo kheer ah ayaa laga soo reebay waa soo sheegay meeshaad ku arki kartiin insha allahu tacaala darsigaas hadda saanan ugu daahin kitaabu adkaar siyaam markuu maraayo ay wuxuu soo qaatay baabu maa yaquuluhu baabka wuxuu dhihi lahaa qofka idaa ra'a alhilaala markuu arko bish wamaa yaquulu idaa ra'a alqamara iyo markuu arko hilaalka waxaa la yidhahdaa bishon aan dhamaystirneen qamarna bisha dhanba waa la dhahaa wamaa yaquulu idaa ra'a alqamara wuxuu yidhi روينا في مسند الدارمي وكتاب الترمذي عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله قال الترمذي حديث حسن رواية أو مسند الدارمي إيو إمام الترمذي بأيسو قوريان ayaa wuxuu leeyahay طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu ahaa markuu arko hilaalka bisha dhalatay markuu arko wuxuu dhihi jiray اللهuma ilaahayow ahilahu calayna ilaahu nagu soo geli bishaan ilaahu nooga dhali bishaan bilyumni yumniga waxaa la yidhaahdaa barakale waay ayadana nooc min albaraka waay waa nooc min yumni waxaa la dhihi karaa tafaa'ul in macnaha rajo wanaagsan la qabo in macnaha tafaa'ul iyo yumni ay ku soo gasho oo macnaha akhbaar kheer ah macnaha iyo waqti zaman kheer ah inuu noqdo bilyumni waliimaani ilaahayow nooga soo geli bishaan kadalika iimaan nooga dhali iimaan wasalaamati iyo nabadgelyo walislaami iyo islaamnimo rabbii warabuka allah bishu markaas wuxuu dhihi jiray rabbigay iyo rabbigaagaba ilaahay waay marka adkaarta inaan dhahna maanta loo baahan yahay ay ka mid tahay wuxuu yidhi allahuma ahilahu calayna bilyumni waliimaani wasalaamati walislaam rabbii warabuka allah bisha marka la arka waayo oo hindhaha la saaro haye waruwiina fi musnad الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر الله أكبر hal maray bes inta ku qoran tahay laakiin riwaayadooyin kale oo dhowr jeer lagu celcelinayna way jirtay oo culimada aan ka maqalnay Allahu akbar Allahumma ahillahu alayna bil amni wal imani was salamati wal islami wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah ilaahayow nooga dhali bishaan alayna korkeena ama dusheena bil amni nabadgeliyo maanta adkaarta markii laga tagay nabadgeliyada waa yaraatay waa aragteena u malayna adduunka dhan waxa ka socdo asbaabta ugu horeyso oo macnaha maanta amniga lagu heli laayahay waxa waaye adkaartaas la'aanteeda markaan ka hadlay magaalada Tariim aan insha Allah taala aan wajaclaha inaan ku sheego darsiga soo socdana oo ku sheegi doona magaalada Tariim magaalo adkaar 24 saac ka socdo waay taas waxay sababtay maanta Yemen dagaalka ka socdo oo iyo rafaadka ka socdo aad la socotiin magaaladaas ilaahay waa xafiday xabad saan kor loogama tuurin waxna kor uguma soo dhicin waxna hoos lagama tuurin wax is haysta male magaalada waa socotaa nabadgelyo jirta inay dawlad jirta u malaysaan oo nabad jirto wadankaasa beledkaasa Yemen ku yaala isma dhahaysaan waxaas dhanna maxaa keenay adkaartaas ay ku dhagan yihiin nabiga kaleey salaam ay macnaha wixii laga soo gaaray adkaartiisa subaxda hadhiin masaa hadhiin galabtii hadhiin salaadaha kadib hadhiin markay masaajidka galayaan markay ka baxayaan dhar markay gashanayaan markay beecooda shirahooda socodkooda gaariga markay fuulaan markay sii socdaan markay soo socdaan waqtigooda dhan adkaarta carabka kama reebaan culimadoodan habeen iyo maalin kama zuulaan inay xasuusiyaan saas daraadeed amni helaan marka fiiriye hadda fiiri mas'aladan oo kale markii bisha uu arka nabiga kaleey salaam wuxuu dhihi jiray Allahu akbar ilaahay baa weyn Allahumma ahillahu alayna bil amni ilaahay oo noogu dhalay bishaan amni والإيمان إيمان والسلامة نبتقليو والإسلام إسلام نمو والتوفيق توفيق لما تحب وترضى إن توفيق ذا نسيسد واحد أذي جعشة أو نرالك أنه توفيق ذا نسيسد ربنا وربك الله مركز بشو حولها ربك ربك إلهي جل جلاله إن أسبابته هاي ربك إلهي وين إن شاء الله تعالى وأصوص عنا محاد عي ظهر أو حاجري عابدي جري بش إيوه قرح ذبا annaga ummad ilaahay subxaanahu wa ta'ala islaan ah aanan wax kale u sujuudaynin wax kalena aanan caabudaynin ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga dhigay ummatu tawxiid tawxiidkaas ilaahay nooga nimciyay waruwiina buu yiri
marka riwaayadii hadda horta aan kasoo tagnay oo hadda aan sheegnay waxay ahayd ayadana musnad ad-daarimi iyo ibn xibaan ibn sunni. وروينا في سنن أبي داود في كتاب الأدب عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد. رواية لنا هلال خير ورشد لها داربت هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالله الذي خلقك آمنت بالله الذي خلقك آمنت بالله الذي خلقك 3 مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وحيري رواية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي عليه الصلاة والسلام نحريس نبت قلي كركي ساهاته كان وحوها إذا رأى الهلال مركو أركب بشه لا شذا هذا قال وحو يجري هلال خير ورشد هلال أو خير إيهنون هلال خير إيهنون هلال خير إيهنون هلال آمنت بالله الذي خلقك وحان رمي آن آمني ربي كو أبوري 3 حجار كو عليناي ثم يقول مركز وحو يجري الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وحا مهد له ربي بالهبل وضي او هدنا بالهبل نوسو قلي ايا مهد له او آدابتها صورنا مانتا إمام أبي داود في سوقاتي رواية إمام أبي داود لغا سو قوري إمام أبي داود انتو كو سوقاتي وحو كو سوقاتو لها كتاب الأدب وحو نوع عدينا آدابتا إسلامك إني كم التهي أو للأسف مانتا آد لوغو تغي مركا آدابتا أنا ربنا أولادنا نكو تربيينو نفسدها نكو تربيينو أنا صونو لينو maxaa dhacay sunnadooyinka laga tagay ay maanta kamid tahay man ahya sunnati hadith wa man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 50 shahid qofkii soo noolay sunnadahayga markay ummadayda fasahaado wuxuu leeyahay 50 shahiid ajarkooda. riwaaya waxay weydiinayaan saxaabada 50 shahiid annaga naga mid ah ya rasuulullah mis ayaga kamid ah ummadaas markay ummadayda fasahaada ilaa aakhiru zamaan laga hadlaya insha Allah duruusta fiqh tahawulaadka ku arki doontiin xadiithada waa soo socdaan insha Allah taala hadii ilaahay cimri caafimaad nasiib wuxuu dhahay bal minkum bal idan kamida idan qontan saxaabi ajarkiisi qaado ayadoo qabooban qaado marka soo nooleysad sunnadooyinkan oo kale oo aad bartid ehelkaaga adiga nafsadaada ku amal fashid dadka adiga kugu soo horeersanna adiga aad bartid oo mise aad ku tarbiyeysid. وحير في رواية عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه هكذا رواهما أبو داود مرسلين. وحير النبي عليه الصلاة والسلام هلال كمركو أركو وجهي سوى كل حسنجري. وفي بعض نسخ أبي داود قال أبو داود ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. وحنو شيغا يا إمام أبو داود حديث أو صحيح إنه سنجرني يعني حديثان أنتو ضبطا حديث ضعيف حديث كضعيف كان درسك أو 40 نووية سيدي عن مسألة دي هو حسن المسلم كإيو كتاب كان أذكار كأنوصو شيغا وكلا كتاب ك40 دروس تانكو أخريو أتكهلي دونتان إن شاء الله تعالى إن لغو عمل فالك حديث ضعيف كأ شروط إليهن كو عمل فالكوضة. كذلك إمام النووي كتاب كيسان الأذكار وكل شيء جاي شروط داس كعمل فلك حديث كضعيف ورويناه في كتاب ابن وعيري وسلم حديث مسند صحيح على كل حال اسكسو أرورين وحكاها الله يسأل نفس المسائل وحنوغ حيقو إن شاء الله تعالى أن ربنا إنا وحكا فيرنو إن مسألة كصابسا أذكارتا laga soo gaaray culimada islaamka qaar oo ma'thuuraadka ah waxyaabaha bishaan muharram la akhriyo waxaa kamid ah inay dhaheen bishaan muharram bilowgeeda sidii hadda aan soo sheegnay adciidii hadda aan hore u soo sheegnay in la akhrinayo intaas kadib waxay dhaheen qofkii sanadka cusub soo gaaro waxaa fiican inuu macnaha ku duceysto أدعية معينة اللي جسوا جاري علماء الإسلام محاكم إذا أدعية داس ما يطلب في أول العام دعاء أول العام دعاء ويالن آخر العام سنة كلمات كيس إن شاء الله إلهي هدون نفط النور داي وشيء دورنا سنة كلمات كيسة دعانا وحي معناها أقول لجان سنة كباللويس سنة كباللويس سنة كلمات كيس مركب حي دهن
qofkii aayatul kursiga 360 jeer akhriyo oo mar walbana ka bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim bisinka la akhrinayo macnaha 360 ka aayatul kursiba maalinta koowaad bisha muharram kadibna dhaha allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil hali ila ahsani hal حول حالي إلى أحسن الأحوال إلهي قد قدنا أيو أحواشا معناها سنة كبا حولك سندك زمنك ربي إلهي حالك أحسن الأحوال حال ذها تنقفي عن حالك أنا قد أقدي سندنا على الله بيا اللي قدي هاد سند عصبان قلني زمنك معها شلينا مصون قنيسو برنا ولي ما أنا قارن ما أنت نجوبنا سند عصبان النوب الله مرك إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا أحواشنا إنه أحسن الأحوال كذلك دائما إن كذلك وحيدهن ninkii aayatul kursiga 360 jeer akhriyo oo markuu dhameeyo intaas oo dhan bisinkan ku bilaabay mid walbaba dhaho allahumma ya muhawwil al-hawli wal ahwal حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز ويا متعال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فإنه يوقى ما يكرهه في جميع العام سنة كاسولان إلهي وكبد بادنا وحول بقول نعبيها مس وحول بقول لبسناي إلهي وككافنا يدهن سنة كاسولان طبعا أدعي ذا علماء وين لقسو قاري سيد إمام الديربي وكله وفوائد كيس كسو نقليي أو نكسو نقلي إمام كجمال الدين سبطي ابن الجوزي وكسو نقلي أسجن شيخيسي عمر بن قدامة المقدسي طبعا ننكي يقانا علماء يقانو أو هذا الكوضنا قادنا دتك كلا لكن كان جاهلك أو حدها ما لقسو قاري النبي عليه الصلاة والسلام ما جرتو بدعة واي انت واي مركا دتكاس معارضين تأ وسيدي قاطع الطريق وكله maxaa dhacay aad hadii aadan ku mashquulin culimada islaamka hadaysan dad ku mashquulinin adkaartan iyo khayraadkan iyo nafaxaadkan maxaa lagu mashquula adduunyada daba orodkeeda ama wax nafsada kugu mashquuliso oo shahawaat iyo shubuhaat waxaan loo baahneen ah idan ayaga markay adkaarta dayaceen ay waxay rabaan hadan cibaadki ilaahay adoomada ilaahay subhanahu wa ta'ala inay hor istaagaan oo adkaarta ay u diidaan waxaad sameynaysid wafcalul khayra ilaahi subhanahu wa ta'ala dhahay idan khayrka albaabkiisa waasaco waana furan yahay hatta hadan nabiga laga soo gaarin alayhi salatu wasalaam waa lagu amal fali kara culimo islaana laga soo gaaray ducadana way furan tahay ilaahay ud'uuni astajib lakum u dhahay mana loo yeelin xad mana la dhihin wixii nabiga bas ku duceysta wax kale ha ku duceysana lama dhihin idan علماء waxay noo sunneeyeen ay noo jideeyeen adciyo wanaagsan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala iiga soo ilhaamiyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u furay ninkii ku amal falana ajarkeeda xasanaadkeedu leeyahay kan ku amal falino dadkaas raacana asaa islu gooy wuxuu ku mashquulayaa nafsad iyo shahawaadkeeda iyo shubahaadkeeda iyo adduun munaafasadeeda iyo daba orodkeeda ama siyaasad iyo telefisyon iyo waxa jinni iyo waxa baqti oo asaga aan loogu talagalin oo Ilaahayna u abuurin إذن أذيك لبض ودكا قاضي لهذا أذيك جرتا إن شاء الله تعالى النجا شيء بسان لنا وما علينا إلا البلاغ وحير الدعاء أول العام كيقول لجان محاكمة ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سدح جيرها الآخرية دهين علماء وحي دهين فإن الشيطان يقول شيطان كمركز وحولها استأمن على نفسه نفس الديسي واسمعناها قاشانتي أما وإلى الشذي وتوكل به ملكان لبما ملكنا والله سوى وكيل مركز هاسره يحرسانه من الشيطان وأتباعه وحي أي معناها كإلى لنا يان شيطان كأي أتباع ديسي مركا دعوين فربضان أيا جرا كتاب كان أسجنا آذو في عينه سنة كردن بلوين كإيو معناها مناسبات كمهم كأهردن أيو كهالله يدعوين كالآخريو
waxaan jeclaan lahaa kadalika ninkiiba helaayo inuu helo PDF asagoo aan kulleyba internetka ku jira oo heli kartaan ninkan wadamadan aan ka helaynin waxaa la yiraahdaa kanzu najaax wasuruur waxaana leh sheekh la yiraahdo الشيخ عبد الحميد قدس رحمة الله تعالى عليه marka insha Allah ta'ala ku dadaala in adkaartaas adciyadaas la akhriyo mas'alada ugu dambaysa aan raba inaan ka hadlo maanta insha Allah ta'ala waxa waaye mas'alad oo ayadana sidoo kale dadkaas qutaac turuqa ah ee raba dadka khayrka inay ka hor istaagaan mar walba soo qaata ee dhaha ma banaana ma jirto ma sunnaysna in tobanka caashura la soomo yaa ikhwaani axaadiid saxiixa sariixa ayaa ku soo aroortay nabiga inuu soomay calayhi salaatu wasalaam iyo inuu ku amray soonkiisa qaarkood bukhaari iyo muslim iyo keyrkood ay ku soo arooreen hadda ani waxaan ka akhrinayo waa kitaabka riyaad الصالحين baab wuxuu soo baabaystay imaam النووي baabu fadli sawmi yowmi carafa fadlu sawmi yowmi carafa وعاشوراء وتاسوعاء wuxuu yidhi can abi qataada radia allahu canhu qaala su'ila rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam can sawmi yowmi carafa qaala yukafiru sanata almaadiyata walbaaqiya kaasoo carafaat sanadkii hore iyo sanadka dambeba dembigooda ilahay ku dhaafa maalinta carafa in la soomo rawaahu muslim haye wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ibn cabaas waxaa laga soo guuriyey radia allahu canhuma raalli allah ka noqdo asaga iyo aabihiisaba alcabaas bin cabdilmuطalib nabiga adeerkiisii ahaa ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam saama yowma caashuura waxaa sugnaatay in rasuulka alayh slat slaam uu soomay maalinta caashuura wa amara bisiyaamihi uuna ku amray in la soomo muttafaqun calayhi xadiidkan waa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ba isku raacay idan ikhwaani alkiraam ani ma garan karo dadka maanta inay meesha baraha bulshada soo istaagaan ee iska soo duubaan video ee cawaamta ku cayaaraya ee ka hor istaagaya soonka iyo cibaadada iyo khair horta qofka cibaado ma u jeedaa mise wax xun u socdaa waxa xun ma dadka ka celisaan habeen maalin aad u sheegtaan waxa xun iyo wadada xun maad ka celisaan boqolaal shay oo fool xun social media hadda ninkii furo fool xumada taalo akhlaaq xumada taalo waxa lagu hadlaayo oo afka aanan soo maraynin akhlaaq xumada taalo kabiir iyo sagiir horti dhalinyarta kaliya la eedi jiray hadda dad waaweyn oo waxay ku hadlaayaan aadan u malaysa hal mar ayagoo ka hadlaaya lama arko laakiin maxay ka hadlaayaan habeen iyo maalin maxay daba taagan yihiin adkaartii cibaadadii soonkii ramadaana la gaara taraawiixyaa la tukan taraawiix sunno ma aha waxaa la gaaraa bishan muxaram yaan macnaha maxaan ku idhaahdaye tobanka caashura lama soomo maxaa marba waxay keenayaan rabiicul awal la gaara mawluud bidco waay lama dhigan karo waxaa la gaara subxaana allahi alcadiim rajabaa la gaara lama soomi karo shacbaana la gaara lama soomi karo adiga cibaado salaad tasaabiix lama tukan karo salaad fulaan lama tukan karo yaa akhi waxa aad ka celinaysid qofkan maxaa waay horta cibaada sayidina cali bin abi aalib radia allahu tacaala canhu masaajidku soo galay wuxuu arkay qof oo tukanayo xilli waqtiga salaadaha makruuha ay tahay ama xaaraamtaba ay tahay tukanayo arkay tallaabooyin u qaaday inuu ka celiyo haddana uu ka soo laabtay markaasay dhahan yaa amiir almu'miniin maxaa macnaha haddana ugu joogsatay qofkan adoo usii socdo oo ka celin raba salaada markaasuu yidhi waxaan xasuustay qowlka ilaahay subxaana wa tacaala markuu dhahay afara'ayta aladii yanha cabdan idaa salla ma aragti kii ka nahyinaya addoon tukanaya idan cibaadada ma la isku diidaya ikhwaani nacam haddii cibaadada si sax uusan u gudanaynin ama waqti sax uusan gudanaynin waad u sheegi kartaa waad bari kartaa laakiin inaad ka hor istaagtid cibaado oo daa'iradii kheerka iyo daa'iradii bidcada xasanada ahayd iyo daa'irada maxaan ku idhahdaa sunnada qaarkeed hadda tan oo kale waaba sunno xadiidaba ku imaaday inaad dadka laga hor istaago oo mubariraat iyo nawaaqid oo aanan macno lahayn la keeno oo la yidhahdo maya bishaan waxaa dhintay imaam alxuseen oo hadduu dhintay imaam alxuseen cibaadada dartiisa maa loo joojina cibaado awowgiisa ka soo aroortay asaga naftiisa ma ogolaan lahaa in laga joojiyo xaasha oo kale isla maalintaas imaam alxuseen dhintay waxa loo macnaha loo soomaya ixtifaal waxaana sunneeyeen dad fulaana sunneeyeen reer bani umaya sunneeyeen xaqay insaafka loo baahan yahay aalu beyt annaga nagalama jecla radia allahu tacaala canhum waa jecelnahay madaxayna noo fuulaan weliba cidaan ka jecelnahayna ma lahan laakiinse cibaadooyinkii soo arooray nusuus saxiixa sariixa ku soo arooray in dadka looga hor istaago aalu beytkaa la dilay dad fulaan aawi daliilka adiga aad u haysatid inay dad fulaan ay macnaha maalintaas ay sunneeyeen annaga waxaan haysanaa axaadiid saxiixa sariixa
marka ma naqaano waxa dadka looga hor istaagaa cibaadada waliba zamanka annaga aan ku jirno dadka cibaadada in lagu booriyo waaye maaha in laga hor istaago marka baaraka allahu fiikum dadkaas noocaas ay qutaacu turuq waaye ilaahay subxaana wa tacaala waddadiis dad ka hor istaagaya inaad dhagaha aad iska tirtid waaye markay waxaasoo kale ay ku sheegaan xadiid kale وكذلك كجرو رياض الصالحين وعيروا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ولا ويدي عن صيام يوم عاشوراء لا ويدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يكفر السنة الماضية دم بيجي سنة كهران أي إلهي كل عفا رواه مسلم طبعا أنت وحلو قال جدا ذنوب تصغائرته ما هنا كبائرته توبة وبهنته inkastoo saqaa'irta naftooda tawba ay u baahan yihiin laakiin kabaa'irta laga ma hadlayo meeshan waxa ay culimada ay sheegi jireen in saqaa'irta laga wado ilaahayna wax kuma aha macal kabaa'irta naftooda inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala tirtir markii la fiiriyo raxmada ilaahay cafugiisa iyo macnaha iyo jaanibka lutfigiisa وعن ابن عباس حديث قدام بي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ilaa sanadka dambe haddaan joogo xadiidkan sanadkii horan soo sheegnay waxaan soomi doonaa maalinta sagaalaadka asagoo ku khilaafaya yahuudda nabiga calayhi salatu wasalaam maadaama caashuura ayaga ay soomi jireen oo madiina markuu imaadeen nabiga calayhi salatu wasalaam uu weydiiyey yahuudda maxaad u soomayseen ay dhaheen waa maalintii ilaahay badbaadiyey nabiyullaahi muusa ee annaga شكر إلهي أو شكرنا أيام أسومينا مرك النبي عليه الصلاة والسلام نقول نحن أولى بموسى منهم أنجا كحجنا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ونصومي ونكو أمر الدتك إن صومان إذن بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى بريها صوص عضو مالنت سجالاتك مالنت طبناتك وصنو صاد جدًا إن لصوم عاشوراء أن صنو أن أجر كاس حسنات كاس أن راتسنو إلهي توفيق ذا الله نوافجيه سنة كان سنة خيرات سنة نبت قليئة سنة أمني أمان سنة أذكار أن حافظنا سنة صلاة أن حافظنا الله نوغلقه سنة توفيق سنة شرط لن إلهي نقبته أمد مسلم كمال جوغان ميل والباب الدبك إلهي إنه الدمي ميلها الدبك كدارا خصوصا يمن عراق سوريا فلسطين كشمير هذا كشيء أنت أيضا للأسف أيضا قنطن سنة أيضا نفت هذا حال كلا سجرتي هذا هذا كشيء أنت إن لجور قبل روا إيجور كإيو China masaakiintaas ayagana lagu haysto adig meel walba adduunka masaakiin lagu haysto muslimiin ha ahaadaan ama aysan ahaanin meel walba dulmi ka socdo dulmiga in ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhaalimiintana qabto dabkana damiyo oo sanad nabadgelyo ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala nooga dhigo oo raxmadiisa ilaahay nagu soo dejiyo insha Allah ta'ala hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi